ها وما سنت دتك لا جانسينا. ما حسنت عدنا سودو مرك. وأنا علمي قبل إذا واحد وحري كودي ولين جواب لي مثلا واحد اللي كلام ما قرن كرو واحد جواب كإيمان مigration كنا ما أركنيه غورما حريص. غورما حريص. وحري جولاي 16 21 كي جولاي 16 مركا ما مريكنا جوكتا دي. أنا مريكنا جوها في زمية وحا حريص مركا. no de waxaan xareeyay gabadhiin qabo camal aan keensan rabo camal waxaan ka xareystay فومكا حريص I want تيدي مياه. ninkii xareynay wax xareey u dhahay warqadii ma kasay anaga Soomaali iska nahay waxaas waa iska ya معناها وحي اللي وحري أنا قرن كرتا مهم وقت ديب وحي وراقي كو قرن هذا أنا قرن كرين تاسا ورينا. ma akhrin karna dad noo akhriyaan doonayaan oo dadkiina waa xareey warqadii u dhahay lacagta waa iska qaatay مركا أبروف الماشي مركا ما لقوسو جوابي ma ما helin أقول ilaa هذا أبروف saacadan الماشي waa سيكيس. ogolaasha ma diidma ma helin هذا سنة وحبا كاقل دانين إن الحلقة كان كورا أبروف الهشاء هيد مركا وإن اللي حريرتا كوا USCIS كنا اللي حريرتوا. wax qaldan ma jirto iyadana waxba kama qaldana aan waxba igama wax kasto waa sidii aan isku ogeyn leh anaga oo isku naqaan caadi ها مركا لبا سنة كدوا هذا كسور يعني تقولين أبروف الماذا نحلين مركا. there is something wrong كل واحد جرى لو إن اللي حريرتا كوا USCIS توا ana warqadii halkan warqadii Kenya ka keensaday ma book igu waa garan waaye warqadii may akhrin waayeen oo book ma daanoon ما حرينتا مركا عاد حريسو اسكو محرنا وراقبها أنت بدن looma baahno marka hore xareynaysa marka ogolaasho lagu siiyo kadib waaye marka waraaqaha iyo waxaas lagaaga baahnaanayo laakiin marka hore xareynta muhiimaddu waxay tahay inaad xareyso kabacdina proof lagu siiyo markaas kadib kiiskaada waxa uu gudbiyaa national visa centerka kadibna safaaradda uu sii gudbayaa marka kuwa immigrationka oo USCIS ka approval ka bixiyo marka kuwaas waa weydiiya halka ay dhibaatadu ka jirto ama okay asaga waa kulaab mahadsan ninkii kuu xareeyay email ha u dira magaca hay waa mahadsan walaalkay ay brother Najib soo dhawo dhowaa aad aan kuu salaamayaa cilmi gudoomiye ninkaana xoogaa isku dhownahay su-aashuu qabaa anigana marka waa nin meesha waxbaa iga xareysan inkastoo aan ka roono aniga dee xoogaa 3 bil koo adiga January 24 warqadda ii soo diran yiraahdeen 9 cisho kadib jawaab baa helaysaa marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaliya hal su'aal waaye su-aasha waxa waaye marka proofka oo kale meeqa camal lagu helaa bishii aniga waxaan xariyay جون 2022 baa hawsheeda la bilaabay marka abruufka kale adiga January sanadkan January isu jawaabay waxay warqadii soo direen marka waxay yiraahdeen adiga 3 cisho kadib jawaab baa helaysaa marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inta ugu yar lagu helo niha proofka ilaa 6 bilood waa uu qaataa mararka qaar sanad wuu qaadan karaa laakiin hadda waayadan dambe way fududeeyeen waqti badan ma qaadato markay ugu badnaan 6 bilood ay qaadataa okay hadda 6 bil ka badan buu sugay 8 bilood waa 9 bilood dhan inta sugaya marka waa kulay meelaha kale adaga u maleynaa Turki baan joogaa Kenya iyo kulay Turkiga iyo kulay marka haddana waxay ku xiran tahay kiiskaada gobolka loo dirayna way ku xiran tahay gobolada kale adag miyaan gobol kiiskay gobol wax laga furay North Carolina ka furanta North Carolina marka waa in xiriir la sameeyo email loo diraa markaas oo kale kuwa USCIS oo approval ka bixiyo markaas kadib iyaga ku sheegayo in kiiskaadu halka uu marayo iyo xilliga ay ku siinayaan hadda waaba inta approval lagu helaan ku weydiinay laakiin hadda January warqad soo direen 9 cisho kadib jawaab baa helaysaa yiraahdeen marka waqti laba gaar laakiin hada saka weydiinay inta macna lagu helo 9 cisho haday ku dhaheen marka January haday ku soo direen ilaa April iska sug marka aad u masdab intaas inay idii ogolaadaan adiga waa santa brother السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم معلم. وعليكم السلام ولا أستاذ ونارس. ودوا ولالك علمي سؤالا كويدينا يا
qofka oo citizenka oo Mareykanka markuu xaaskiisu kala dacwad u furo ilaa intee ku qaadanaysaa dacwadaas cadi qofka in improve la siiyo ama caddeyn loo soo diro maadaama qofka aniga waxaa haystaa basaboor Ethiopian Kenyana waa ku noolahay dacwadna xagga waa ka sugaya in badan adi muddo 3 sano camal waa sugaya marka welina wax jawaab oo la isiiyey ma lahan faa'id waxaa la xareeyay 21 kii la xareeyay okay marka qaab xaas ahaan waa miya qaab xaas ahaana lagu xareeyay haa okay ilaa haddana waxa program ay sanadisiin ilaa haddana wax approval lama haystay haa marka qofka marka visa markuu qofka oo yaa qofka ku xareeyay Mareykan uu joogaa Mareykan uu joogaa haa qofka xareynaya haa xaasnimo ku xareynaya kiiska gobolka ku joogaa ama soo sidii magaalada dhaw joogaa gobolka keewaas gobol magaalada maxaa tiri Nebraska waa maleyna Nebraska inuu yahay maleyna gobolka Nebraska okay Nebraska xarun immigration oo weyn ah ku taala waa xarumaha ugu fiican ah marka ma lawyer u xareeymasa qof kaligiis oo xareystay walaa wuxuu dhaas qof Soomaaliya xareeyo maleyna ajantiya Soomaaliya in ka xareeyna maleyna kiiska marka approvalka haddii qofku uu sanad ku dhawaad ka badan waayo waa inuu email u dira ayaga u weydiiya sababta marka ayaga marka waraaqay u soo jawaabayaan sida hadda yarka ka horeeyay kala u dhahay 9 maalmood gudahooda kugu soo jawaabayna kale marka jawaabay ku soo siinayaan marka waa in email loo dira marka email u dira USCIS markaas wixii jira ayaga idin sheegay haddii wax qaldan jiraan way idin sheegayaan haddii kalena waxay leeyihiin intaas oo gudaheeda idin ku soo jawaabayna marka xiriir la sameeyo ayaga okay thank you bro السلام عليكم عليكم السلام فاضل ولا سيتاي ما في عنتها الحمد لله سادو ولا waxaan rabay inaan ku weydiiyo qof oo kaar ku jiro oo ilaa phase 2 camal maray oo aanan gaarin GPA group 5 kuma looga faa'iideyn karaa ما لوga ma faa'iideyn karo UN2 wax ka mar UN2 wax ka mar wali kiiskaada UN oo yaala marka muhiimadu waxay tahay kiiskaada inuu u gudbo GPA oo Mareykanka ay dibadejintaas ku ogolaadaan kaarka uu isku yaalay anaa ka soo baxay oo ani dibadejin baa la siiyay laakiin ayada dibadejintii mayna siinin taas maxaa la dhihi karaa ما qofkii la siiyay dibadejintaas baa ka faa'iideysan karo qof aan la siinin kama faa'iideysan karo maadaama qofkii la siiyay uu Mareykan joogo qofkii kale uma dacwoon karo maya qofka loo dacwoonayo oo group 5 ka faa'iideysanayo inuu noqdo waayo qof UN ku Mareykanka u gudbiyaan Mareykankuna dibadejin u ogolaado marka qof noocaas sponsorada ma furan yihiin oo ma looga dacwoon karaa dadku walaalahay siina walaal maxay ii turtay ما أنا كنت تورم ولا القد كنت تورم ويانا كنت تورم هذا هذا كنت السلام عليكم هل قفا كهوري هل قفا كهوري ريسبونسر كسيدة واي ريسبونسر كما لو حرين كرا ولا لله ما حرين كرا قفكو هدي وسن مريكن كدبو دجين كهيسن ويوان كوسن وجود بينين مريكن كون كوشاوي wax kale hadda loo qaban karana ma jirto oo sida responsor camal oo loo diri karo sponsor ka lagu sheegayo group 5 wala responsor ka loo furan ma jiro maya haye wala loo dacwad caadi ah qofku waa u furi karaa qofkiisa kale hadii qof kale oo Mareykan uu joogo ehelkiisa qofkaas dacwad caadi ah uu u furi karaa qaab qaxooti ahaan uu ugu furi karaa laakiin group 5 kama faa'iideysan karo sidoo ugu furi karaa marka qaab qaxooti ahaan marka lambarkee la dhaha kaas buuf rotation qaab qaxooti ahaan waa way dadka xagga jooga ay garanayaan marka qofka hadii uu qof u dacwoon karto uu yahay dacwad qaab qaxooti ahaan waa ugu furi kartaa marka wax lambar mu wataa qaabkaas qaxootiga aan u sheegi karo wiilasha meesha fadhiyaan Soomaalida because anaka mana akhrino mana qorno dadkan Soomaalida ajansiga furto baan u tagnaa
ayakana waxay waa lagu xaqiiqeen lacag un baa lagu dhigay marka wixii inaad fahansantaa fiican sooma qofka xagga jooga Mareykanka adigu Mareykanka joogtaa haa Mareykan ay joogo qofka u dacwoonaysa muxuu yahay marka waa ilmo iga soo haray iyo walaashi ilmahaada waa u dacwoon kartaa laakiin walaasha uma dacwoon karto ilmaha ani ma dhalin ayadaa dhashay marka waxaad ugu dacwoonaysaa marka processkaas waa adag yahay in lawyer lagala tashto u baahan yahay haddaan ilmaha adigu dhalin marka dadkaasoo kale hadday dib u dejin ay Mareykan ka haysan lahaayeen markaasoo kale group 5 waa ugu dacwoon kartay laakiin haddaysan ka haysanin way adagtaa haye walaa ka sugaana ilaa ay jaaniskooda ay ka helayaan haye waa mahadsan rashka maaha soo dhow haye walaal waa mahadsantaa anigay qofka kale ka faa'iidaysto haye waa ka bixi kartaa faadum walaal waa mahadsantahay rashka ma maqlaysaa seetahay waa fiican alxamdulilah warniyo waan ku magaalada qadar oo dowxan ka soo salaami haya barnaamijkaadaan ku xirnaay niyo wartu waad mahadsantahay in baan ku celini maxaa yeelay dadkii Soomaaliyeed oo ku jirtay social media ku jiray nin war xaqiiqi ah soo gudbinay adig kale xaala arkay waxaan kale kulli tarayn waa dad fuujis ka raadsanay laakiin gudubsinay si ilaahay jirto oo runta soo gudubsinay wallahi aad ku arkay marka waxaan ku su'aali jiray taas waa ku mahadsantahay mid kale su'aashaydu waxa waaye oo rabay inaad igu kaalmaysid waxa waaye niyo marka meeshan hadda Canada waan aadi karaa online student lagu aaday waan haastaa meeshan waa kastoo ina qaal ka tahay ama hab haato arrintii kale oo derbi ka bood Soomaali ay dhahdana oo idan waa suurtagal marka rashka codkaada waa gogo'aya niyo qad mi maqli haysa ku maqlaya laakiin codkaada waa gogo'aya marka su'aashaydu waxa waaye meesha ugu dambaysa aan ku su'aal rabo waxa waaye niyow ka rambal Mareykanka qofkii galo oo gudaha galo socdaalka kale kuma weyn laakiin hadda gudaha galo صح shar adag yahay lan tuwani waa ka qaaday ayay صح lagama yaaba inuu gudaha oo shar uga adkeeyo oo mud aad ku rafaadid waxaas lagama yaaba su'aashaadu maxay tahay walaalow war badan aad daldashay ma aanan fahmin qaybta u dambaysa maxay tahay gudaha Mareykanka miya su'aashaydu waxa waaye Mareykanka ninkii gudaha galo oo sidoo Ilaahay kuga geeyo hadaad gashid sharciga ka waran bal ma yahay helitaankiis ma adag yahay walaala dadka qaabkaas wadanka Mareykanka la sharcigooda 10 sano ama ka badan uu ku qaataa in baasaboorka weyn ay ku helaan laakiin sharciga yar haddii qofku qareen ama lawyer fiican uu helo midka yar ilaa 5 sano uu ku qaadan karaa laakiin baasaboorka weyn inuu helo 10 sano ama ka badan ay ku qaadanaysaa qofka laakiin uu kaar shaqo heli karaa qofka intaas ka horeysa hadduu kaarka shaqada helo Mareykan meesha rabo ka shaqaysan karaa okay ma sha Allah waayahay ebo mahadsanid aad u mahadsantahay rashka Rayaan soo dhawow walaalo waxaan rabay aniga waxaa joogaa Mareykanka waxaan rabay ilmo walaalaheed ah oo yar oo maxaa la dhahaa midka ugu weyn 6 sano uu jiro aabahay uu ka dhintay hooyadoodna dhimatay aabahay dhalay muu dacwoon karaa maqaangaara iyagu midka ugu weyn waa 3 ciyaal midka ugu weyn 6 sano jiro okay xageena joogaan ma qaxooti waxbay ku jiraan qaxooti kuma jiraan xagee joogaan Nairobi iska joogaan anaa ka keenay magaalo tuulaan ka keenay Nairobi walaashay hayso marka meesha iskaga nool yihiin horta ilmahaas oo kale maadaama hooyada ama aabaha uu dhalay oo dhintay labadii waalidba ay ka dhinteen oo adigu hadda gacanta aad ku hayso waad u dacwoon kartaa laakiin xogaa waa complicated mararka qaar way adkaan kartaa laakiin maadaama adigu aad gacanta ku hayso biisho cadeymahaasay lagaaga baahnaan doonaa inaad adigu lacag u dirto biisho laakiin
waa u dacwoon kartaa gobolkee joogtaa rashka waa ka bixi kartaa walaala si anaga aan qof waxaa kale waaye fursad u siiyo waa rashka anaga isla mudaaharaadayna sheekh la dili jira allah u naxariista sheekh xasan sheekh maxamed okay marka inaad qareen kala tashato lawyer ayaa aad u fiican laakiin maadaama ilmahaas adigu aad gacanta ku hayso waad u dacwoon kartaa oo isan jirin qof kaloo gacanta ku haynayso hadhowda caddaynta lagaaga baahnaan doonaa lacagaha u dirtay waxaasa lagaaga baahnaan doonaa iyo beelka u dirtay walaalow ilmaha kowdii aabbahay u dacwoonayay aabbahay markuu geeriyooday waa u sheegay inuu aabbahay dhintay inuu ilmaha ka taga u sheegay marka waxaynu ugu dhaheen ilmahaas DNA lii kala qaadayaa yaa ma ahayo ku dhintaaba maye aabbahay afku ku dhintay Nairobi ku dhintay aniga oo asagu dacwoonay dacwadiis ku jiro okay dacwadiis asaga ku jirto okay marka meeshii dacwadii ka sii wadi kartaa waa inaad lawyerkii la xiriirtaa oo tiraahdo aabbo uu dhintay laakiin ilmihiisii oo yar yara ayaa meeshii joogo oo aniguna aan beelo marka arrintaas inaad lawyer kala tashataa aad u fiican lawyerkii markii hore hadduu jiro lawyer dacwadda kuu xareeyo oo hawsha la socdo may lawyer ima xareynin emailka igu soo jawaabi direen marka hadda waa laga yaabaa ilmahaas inay maxaa la dhahaa haddii aan wax u xareeyo in la ii keeno soo maahan laakiin qareen fiican oo dhanka immigrationka inaa hesho waay oo arrintii dacwaddii hore wadana aad u sharaxdo kabacdi arrintaana aad u sheegto marka asagaa wixii talo ugu fiican ku siinayo sax waa thank you walaal waa mahadsan tahay هذا ما سنت ريان عمر سودو السلام عليكم برادر علمي وارئات بنكو السلام وعليكم السلام برادر برادر سودو walaalkay maasha allah niyow ilaa khayr ha ku siisaa soomaalida dadku caawinaysa aan luuqadii waxay garanaynin niyo aniga siyaara Washington aan deganahay waa dhalinyaradii Soomaaliyeed qaraabada ahayd wadankii jirtay nafti noo keeno maanta waxaa lagu leeyahay group 5 ka jiro maana ka haysid maxaa meesha noogu haystaa waa naxkanaysaa ma garad laynay ku soo jiraan waxa waaye mid Soomaali jooga iyo mid wadan dhexe jooga habay kala shreebinaan ku lahaa mid walba wuxuu ku leeyahay niyo maxaa ka qaldan ummadii waxa waaye group 5 loo fasaxay ma Mareykan lagu shubtid أنا مركب حال أني وحن سياد مودين ما أهن وحن وبروسيس لصوم مري قف صوم مري مبلغ فايدة كرا سياد سؤال تاعي حتى أنا جي واحد سؤال wax badan la weydiiyay dhowr jeer waan sharaxay hadda wax yar ka hor waan sharaxay marka Soomaalideena hal dhaqan aan leenahay xilligii dadku qaxootiga ay imaanayeen waa laga faanay waxa la dhahay wariyada ma qaxootigan ku noolaan karaa balaayada marashan online u gali karaa hadda arrintan markii la maqlayna waa la isku soo shubay qof kasta oo kaaro soo doontay marka qof hadda yimid marka iyo qof ku dhawaad 10 sano ama 20 sano ama 30 sano ba dhex joogay meesha oo intaas deganaa oo sabrayay horta isku xuquuq ma noqonayaan هذه marka dadka barnaamijkan group 5 ka faa'iideysanaya Soomaali fara badan dadkii waaleys waa fahmi karaa oo dhahaya ka arka doonta anaga inay dacwoonayno lacag fara badan oo been rabaan inay ka qaataan laakiin waa dad kulay qofkii raba in la dhaco isaga taas u shaqalo oo lacag inuu bixiyo raba laakiin ma u maleynaya group 5 qof intuu lacag ku bixiyo inuu Mareykan ku tagayo laakiin qofka lacagtaas laga qaaday lacag ka dhimanaysa ama ka dhiman rabtay ama ka guban rabtay waay marka dadka barnaamijka group 5 ka faa'iideysanaya waa dadka hore u joogay qaxootiga waliba ma ahan dadka iska joogay waa dadka Mareykanka dib u dejinta ka helay oo Mareykanka wax u maray waxaa jirtay dadkii uu Trump xanibay dadoo corona virus xanibay dadkaas oo qaarna caafimaadka dhowr jeer oo ka dhacay qaarna muddo falayd suga ah dadka muhiimadda koowaad number 1 iskala waa dadkaas marka waxaan isleeyahay dadka hadda marka waqtiga iyo